waxaa lagu dhigaa jid waa lagu dheelmadaa jaxiimaa lagu jabaa jannana aakhiray jirtaa jinkii kale waxaan lahaa ayaantan juuma oran jawaabtii idin masiin jarmaadana kuma maqnayn waa joogo meel ma jirin sibaanse u jilicsanaa jinkii kale waxaan lahaa jamhuuriyadayna iyo jamaca soomaalidu warkii joogtada ahaa idiin soo jeediye xalay jiifmaana ladin jareexana igu mataal jirana meel iga mahayn jibaad olol baan ku jiray jinkii kale بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام يا صومالي مال والبود دونك تعالي سكجوكتان وأضيق محمد إبراهيم أها أو إن دوالي إذن كيرا مغنى أو إسكا مشغولي صادكار كيسان عريس عيسى قبي عيسى وحياله وإسكا جس فاميلي إيشيوز ما سكا مغنى وافعنا الحمد لله برنامج دي بان رباينا وصلابتو oo xiisa gaar ah leh dawladii golihii wasiiradii waa la magacaabay siyaalo kala duwan baa looga hadlayaa social media ama loo analyze gareynaya waxaan rabaa marka in aan anigana aan ka soo jeediyo oraahdayda waxaan dhihi lahaa horta Soomaalidu waxaad moodaa inay ku cusub tahay dawladnimada iyo qaabka loo analyze gareeyo dawladtan hadda aan haysano kala ah dadkana waxaad moodaa wax analyze gareynaya ama ka hadlaya in ay dana kala duwan oo kala gaara ay leeyihiin qaarkoodna aad moodo in ay si personal ama si shakhsiyana ay u cabirayaan cabirka dawladnimada hadda ama golaha wasiirada hadda la magacaabay marka number 1 waxaan rabaa inaan dhaho horta dawladda hala soo dhaweeyo oo dawlad in la soo dhaweeyo oo wax lala qabto ma ogiya in lagu bilaabo carqalad iyo dagaal iyo muran iyo in lagu hala qabsado wax fiican ma aha taariikhiyan haddii aad dib u fiiriso hadda wadankan aan ku noolnahay ee Canada xilli waxaa jirtay marba ninkii qabsada ama xisbigii qabsada dawladda uu shaqada ka ceerin jiray ama ka diri jiray waxa dawladdu u shaqeeyo dhan wixii asaga asxaabtiisa iyo saxibadiisana uu keensan jiray halkaas kadibna waxaa la ogaaday in aysan dawladnimada arrinkaas aysan wax dana ugu jirin in maalin walba dad cusub la keeno shaqada ay bartaan haddana la cayriyo nin kale uu qabsado dad cusub la keeno kadib waxaa la isla gartay ama lagu heshiiyay in dadka wasiirada ah iyo political appointee-ga ma ogiye dawladnimada dadka macnaha siyaasadda ku jira loo daayo wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada wixii ka hooseeya markaa halkaas in ay maamulaan dad khibrad u leh bureaucratis ah yaqaana shaqadaas ay qabanayaan wasaaradda ay ka qabanayaan yaqaana in loo dhiibo oo madax looga dhigo directors looga dhigo lagana shaqaaleysiyo xisbi walba oo imaadana aanan dadkaas shaqada u shaqeeyo dawladda aan laga dirin tii bayna ku caana maaleen after long time qajajac iyo anaa meesha joogo iyo anaa imid iyo ay soo mareen marka Soomaalidu waxaan dhihi lahaa horta inaad yeelataan tiirar waaweyn oo qofka Soomaaliga ah uu ku xisaabtamo oo uu dhaho waxaan rabnaa 1 2 3 4 5 ujeedo in la qabto dawladda imaata ay qabato kadibna meesha laga sii dhaqaaqo oo la garto ruux walbo waxa ujeedadiisa ay tahay wadanka laga rabo iyo waxa aan laga rabin marka waxaan dhihi lahaa koow dawladda had jirta la soo dhaweeyo hana lagu soo dhaweeyo hana laga fisho in ay qabato in ay wadankan xasilooni iyo nabadgelyo ku soo celiso ragga nabadiidka ana ay meeshaas ay ka saarto oo wadankii ay xuduudihiisa dhan dawladii ay xoog ku qabsato oo ama ay la heshiiso ama ay xoog ku qabsato wadankii Soomaaliya labo in ay xooga saarto dawladda jirta sidii loola jaan qaadi lahaa
maamulada markaas hoos yimaada dowladda federaalka si specially loola hadlo dowladda Somaliland rabta inay madax banaanaato marka in constitution-kii asaga laftirkiisii la hagaajiyo la tafatiro la qurxiyo wixii xun laga saaro wixii fiican lagu daro lana sharciyeeyo oo laga dhigo constitution jira oo sharciga laga dhigo marka ana waxa la tahay qodobada weyn in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada wadanka ku nool Soomaaliyeed shaqo la'aanta baan ay haysato in laga fikiro sidii dadka Soomaaliyeed wadanka ku noolaa loogu sameyn lahaa adeegyo u dan u ah ummadaas kobcin karana dhaqaalaha wadanka marka erayada arrimaha waaweyn iyo qodobada waaweyn markaan meel ku xaqiijino markaas baa laga hadli karaa sidii kale markaas dawladnimada ku fiicnaan lahayd ama dhaqaalaha loo kordhin lahaa ama wadanka uu furfurmi lahaa ama maxaa jiray foreign investment wadanka loo keensan lahaa ama loo maalgelin lahaa wadanka marka waxaan rabaa inaan hadda macnaha hadalkayga aan ku soo koobo aan dhaho dawladda muxuu ahaa prime minister Hamza iyo madaxweyne Xasan Sheekh hala soo dhaweeyo hala la shaqeeyo ummadda Soomaaliyeedna ha loo duceeyo in Ilaahay uu ka saaro isfahmi waaga iyo dhibaatooyinka jira haysta marka waxaan rabay Carays Ciise gabaygiisan maxaa ani iiga jira oo aad ii soo jiitay in aan inta dambe aan idin la wadaaga kadibna aan gunaanadka cajalada marka insha Allah aan iyada laftirkeeda aan ka hadlo الله جلو حلقو دقا جدوى لقو ديل مدا جحيما لقو جبا جننا آخر جرتا كلا وحن لها أيان تنجوم أورنج وقتي إذن مسين جرمادنا فما مغنين واجوغو ميل مجرين سبان سو جلع سنا جينكي كلا وحن لها جمهورية داينا إيا جمع سومالي ذو وركي جوكتذا أحا إذين سو جيدية حالي جيفمان الذين جرحنا يقو متال جرنا مليغا محاين جباد أولو البانكو جيري جينكي كلا وحن لها ننجيكي لغا هيا جريدة كما قصلو حالي جيفمان الذين جرحنا يقو متال جرنا مليغا محاين جباد أولو البانكو جيري جينكي كلا وحن لها من جيح مقيه لجورا يان أحيو حالي جيفمان الذين جرحنا يقو متال جرنا مليغا محاين جباد أولو البانكو جيري جينكي كلا وحن لها من جيه جبيه جنجن ومجوك سدو حالي جيفمان الذين جرحنا يقو متال جرنا مليغا محاين جباد أولو البانكو جيري جينكي كلا وحن لها جبتاي رئيسا إيا حبلها جولو ذكلي حالي جيفمان الذين جرحنا يقو متال جرنا مليغا محاين جباد أولو البانكو جيري جينكي كلا وحن لها جريران فلان هيو جريدة صبح ديو جورنالكي كما هيو حالي جيفمان الذين جرحنا يقو متال جرنا مليغا محاين جباد أولو البانكو جيري جينكي كلا وحن لها أنا واجل الحرهاي وركونا واجل عسيحي جمل بالله هرقي دوكات جدال سين نقو مجحجحي كارو حالي جيفمان الذين جرحنا يقو متال جرنا مليغا محاين جباد أولو البانكو جيري جيكي كلا وحن لها دجال ليسوغو نقضو عدو وجقا هيو أبسا جرتايو جرن حدي جحن جحي جرير أن لوغلين أيان جلاليو حالي جيفمان الذين جرحنا يقو متال جرنا مليغا محاين جباد أولو البانكو جيري جيكي كلا وحن لها دجالكي لو قرو بركود جعلايو أطودي جيل مرو جدينكي جنجيغو انتو أي جوررين
أيان جلاليو حلي جيف مال الذي جرحنا إقوم مكان جرنا ملقا محين جباد أولو بانكو جيري عندي كلا وحن لها دبيركي يلا تبا بلاي كلا جرتو جعكلي أن لقى لخين أيان جداليو حلي جيف مال الذي جرحنا يقوم متال جرنا ملقا محين جباد أولو البانكو جيري ينكي كلا وحن لها جرجر لها يحاس أبو سوى جلفتليو تدجير أجرن هيو جعكلي أن لقى لخين أيان جداليو حلي جيف مال الذي جرحنا يقوم متال جرنا ملقا محين جباد البنك جري ينكي كلا وحن لها ينك ودي وجلال سوجيران تيو جواب ودرها يو سيدي سنجيبيو حلي جيفان الذي جري حنا يقوم متال جرنا ملقا محين جباد البنك جري ينكي كلا وحن لها ينعيلكي جوك سبوهر مدلو سو جبشو ودان وجلها يو سيدي سنجيبيو حلي جيفان الذي جري حنا يقوم متال جرنا ملقا محين جباد البنك جري ينكي كلا وحن لها ينقلي سيجرتو هشي جلب ساريو جنو عانا دمو انجيل الكلا اوبين سيدي سنجيبيو حلي جيفان الذي جري حنا يقوم متال جرنا ملقا محين جباد البنك جري ينكي كلا وحن لها يجوني اللقون جبار هذا الكيو جملة إذين سوجيدي حلي جيفان الذي جري حنا يقوم متال جرنا ملقا محين جباد البنك جري ينكي كلا وحن لها إن دون تجمع إيو جلال هذا أخرضو وحجر سوجيدي ساجني أنت قال حين مكاقاتان جواب ينكي كلا وحن لها إيش تاينو جوك سبو جنن كورتاقن يحي جهاد قرطو وقعو مسوجين سنة هيو جنة باهوري جرته جحيم ذاكي أركيو جدكي روحي أن أقون روحي لقوايا جوك هدو جيلك يسكر ذي أصداء بهي جربه محاني إيجا جيرا جينكي كلا وحن لها رتقاد جعشه جسعن كاتارة تبا كل بودي ذا جودو انتو جيغا دساه قان كوكا جرا جدكي روحي أنا قون روحي لقوايا جوك هدو جيلك يسكر ذي أصداء بهي جربه محاني إيجو جيرا جينكي كلا وحن لها لما جيران تهين جيركنا عدو بايتها جال لما دي ساد ربطا وإنو جداليه جدكي روحي أنا قون روحي لقوايا جوك هدو جيلك يسكر ذي أصداء بهي جربه محاني إيجا جيرا جينكي كلا وحن لها أمانك هدي لجرو دقال قرلو جرفضي ننجي فايا مجرو جرماد أروريو إيا هبين سوجيدد إيا جقلها وين لقو جيري جدكي روحي أنا قون روحي لقوايا جوك هدو جيلك يسكر ذي أصداء بهي جربه محاني إيجا جيرا جينكي كلا وحن لها جيدالكي للدعيو دعيكي لقو جبشيو جمعاكي لقو قبتيو متكي جيديو دوشانا جورنالي استاجيري جدكي روحي أنا قون روحي لقوايا جوك هدو جيلك يسكر ذي أصداء بهي جربه محاني إيجو جيرا جينكي كلا وحن لها دبكي جيلال بحثة دقسبا لما جوجين كارو حدي جابدو بستانا جرده باسو حري جدكي روحي أنا قون روحي لقوايا جوك هدو جيلك يسكر ذي أصداء بهي جربه محاني إيجو جيرا جيكي كلا وحن لها ننكاسي جيدي جيري هدان لغدان جوقين جربو كودغا هيو كلبو كو جوك سدا جدكي روحي أنا قون روحي لقوايا جوك هدو جيلك يسكر ذي أصداء بهي جربه محاني إيجا جيرا جيكي كلا وحن لها جرفو رؤية جبي جوري مشاي دهان جورا هرادي إيو جرفتي يغجرو بنانكا جيرا إيو روكا أنسو جمعي سومالي دو جوهر إيو جريبا أي جرتا إلو سولجاوي إيو جهاد بيدو ريان جدكي روحي أنا قون روحي لقوايا جوك هدو جلك يسكر ذي أصداء بهي جربه محاني إيجا جيرا جينكي كلا وحن لها جبوتي إيا جدقا جدد مويالي إيا جمامورت نفقي جزيرات كابد إيا جولي جواي دولكا أنسو جمعي سومالي دو واجرتا ومالو واجرتا
جهاوي جهاد بيدوريان جدكي روحي عن أقون روحي لقوايا جوك هدو جيل كيس كردي والصلاة بهي جربين محا أنا إيقو جيرة كي كلا وحان لها إبليس كما جيرك هوري ملائكتو كجيري سجودي آدم إيو جماعة وكبحاجزدنا الروغة ديغي من جالو تماهي جدكي روحي عن أقون روحي لقوايا جوك هدو جيل كيس كردي والصلاة بهي جربين محا أنا إيقو جيرة كي كلا وحان لها وما جوج أي جوج حقا لغا جودي جودي وما جود كي لغو جربي ألاني جبن هيان من جالو تماهي جدكي روحي أن أقون روحي لغوايا جوك هدو جيل كيس كردي وصلاة بهي جربي محا أنا إيقو جيرة جيكي كلا وحان لها كن جورنال كي ديغان جريدي قرحيان كن جامعة دي جيران جلال كي جيديان عبن كاجو هرد كن بالغو جادي او جير كي كايلاليان وبيغا جينكي سكوري كن بالغو جادي او اسين دي جبين هيان دو كن واجيش كا او جيفي جو كن مجيرو دول كي جيداليان دو كن واجلب ديب او جيرب كا كن مجيرو جرتو دي جي حيان جمهورية دا عربي دو كن باجر جمال تعليمتي جملة يا لغوصو جاذيا دور كنجينا هادتك يا جرمال بينو جيران سانجوعي وقبحني جيري لجهاذيان جيري لجهاذيان كلا وحن لها كنت يا الله عريس عيسى كارشة إلهي هون حريستو حكمته نوغا تغين آباياشين بان آدو جعلها قبيضة يسوغانتي نلوغا تغي xilliyada hore Soomaalidu aad waxuma qori jirin laakiin way gabi jirtay gabayadii baan hadda haynaa xikmad meeshaas nooga dhowna ma jirto marka aan u soo noqdo dawladii aan ka hadlaynay iyo golihii wasiiradii la magacaabay iyo dawladda cusub ee Xasan Sheekh ummadda islaamka waxa fiican in laga farxiyo wax fiican loo sheego waxaan arkaa dad far badan oo muxuu ahaa isla markiiba dhaliil iyo negative ka hor keenaya dawladda hadda curanaysa ee hadda bilaabantay ee Xasan Sheekh iyo Prime Minister Hamza marka waxaan rabaa inaan Soomaalida ku baraarujiyo dadka hadla xil baadan saaran aakhirna waa isweydiin ummadda wax fiican loo sheego dhaliisha inay constructive noqoto wax ay toosinaysaa fiican in iska dhaliilo ummadda ma fiicna marka waxaan rabaa in aan kusoo gabagabeeyo Soomaaliya Ilaahay nabad ka dhigo ummadaha tartamaya ee ku tartamaya horumarka iyo fiicnida iyo wanaagana kuwaas oo kale Ilaahay naga dhigo waana idin salaamaya khayr iyo baraaran idin rajeenaya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa Maxamed Ibrahim Xaldoon ee Xikmad soo dhawaada salaamu calaykum waraxmatullah